noo sheegeen daktarha iyo nurseska iyo respiratory therapy aan ahay qofka ugu hore aan noqonaynaa inaan soo helno vaccineka because dadka covid haystaan iyo dadka jiran wax badan aan la shaqeynaa qofka ugu hore inaan noqono waayo saas ay iga waceen waxaad maalinta koobaad manoo imaani kartaa markaan imaado waxaad ahayn anaan kula hadlaan rabnaa markii ila hadleen wax yar waxay i weydiiyeen su-aale i weydiiyeen maxaa qaadanaysaa vaccineka maxaa ka rabtaa vaccinekan waxaan u sheegay waxaan dhahay inaan example noqo aan rabe oo Somali community wax badan ee u malaynayaan inay vaccine kasto uu xun yahay waxaan rabe communitykeyga inay arkaan qofkan vaccinekay qaadanaysaa iyo way soo fiicnaan Zahra waxay ga warantaa markii lagu dhahay qofka koowaad ma noqonaysaa oo su-aal lagu weydiiyey oo aad aqbashay cabsi intee la-eg ayaa dareemaysay inaad noqoto qofkii ugu horreeyey ee gobolka Alberta tallaalka COVID-19 la siiyo? may cabsi ma dareemayeen wax yar waa iska naxay because ma umaleyn inaan qofka ugu hore noqonayo waa iska shaqadeyda shaqadeyda waaye inaan dadkan la shaqeeyo inaan dadka jiran la shaqeeyo so markii ii sheegeen vaccineka helaysaa waxaan dhahay wax caadi waaye so markii ay dhaheen qofka ugu hore aan noqonaysaa cabsi ma dareemin laakiin waxaan dhahay dad badan camera badan ayaalayaan interview badan ay ku sameynayaan newska aadaysa markaa saas ii dhaheen wax yaraan aan iska qabsay waxaan dhahay hooyadeeda hadday aragtay gacanteeda inuu national TV qof kasta arkayaan way xanaaqeen bas ka sameeya waad ka aqbashay marka in lagu tilaalo laakiin cabsi yaraa jirto sida aad sheegtay maadaama warbaahinta dhan ay halkaa joogtay oo qofka ugu horreeyey maadaama aad tahay ku wareysanayaan oo wadankii dhanna laga baahinayo adigoo talaalka lagu siinayo sax si wanaagsan waan gartay marka waxaad iga warantaa waxaad sheegtay hooyada inay yara diidaneed in warbaahintiiyo joogta meesha adigoo garabka laga tallaalayo oo garabkaaga la arkayo in aysan yara jeclaysan markii horeba sideebaad ugu qancisay hooyo inaad noqoto qofkii ugu horreeyey ee tallaalka COVID-19 la siiyo ee gobolka Alberta? qofka ugu hore maxaa noqonaya dhahde qofka ugu hore maxaa noqonaya saas ay dhahdeen waxa dhahday dadka oo daqooda way iska qaadi karaan laakiin dhalinyarada inay iska jiraan waayo because Facebook ay ka maqashay dhalinyarada wuxuu joojinayo inay ilmo dhalaan waxaan u sheegay hooy macaan ilmaha ilaahay oo ka imaadaan so waxyaalo badan aad jooji karo like researchka baarista waxna maka helen inuu vaccinekan joojinayo inaa ilmo dhali karto. Zahra, Soomaalidu way ka baqaan tallaalka badankood iska daa COVID-19 waxaa la sheegaa in kan loo qaato hargabka flu shotka laftiisu inaysan u badnayn dadka inay qaataan oo Soomaalida ay ku yartahay inay qaataan. Soomaalida inaad adiga noqoto qofka ugu horreeyay oo gobolka dhanba Alberta tallaalka la siiyo fariin noocee bay u gudbinaysaa jaaliyadda Soomaalida? dadka see uu sheegay ha ka cabsanin tallaalkan ma aqaan because community waa taqaantaa dadka like sida u sheegtay hataa kan caadiga ma qaadanayaan so kan hadaynan qaadin like wax badan kala xun soo imaana hadda Edmonton kaliya iyo hataa Calgary meelaha oo covid ugu badan waa north east waa meelaha Soomaali ay ugu badan yihiin so dadkeena inuu talaalkan qaada ka fiican laakiin